qaar ka mid ah dhalinyarada iyo aqoon-yahanka beesha magaale kana mid ah beelaha dega gobolka Sanaag kuna hadlayay afka beeshaasi ayaa ka hadlay tabashooyin iyo qaladaad ay sheegeen inay ka tirsanayaan Somaliland gaar ahaan maamulka gobolka Sanaag iyagoo dhalinyaradani Somaliland ku eedeeyay inay u adeegto cid gaar ah balse aanay si xaq ah ugu wada adeegin beelaha dega Somaliland waa sida ay sheegeen dhalinyaradan oo Arbacada 11 bisha 11aad 2020 magaalada Ceerigaabo kula hadlay TV-ga codka bariga Afrika dhanka kale waxa ay ka hadleen habbeeleed ay sheegeen in lagu qaybiyo laguna jaangooyo dhammaan shaqooyinka iyo xilalka gobolka Sanaag kuwaas oo ay gebi ahaanba beeshoodu ka faramaran tahay waxaana ay si adag uga hadleen isla markaana isu dul taageen inaanay bixinayn wax cashuura waxaana ay u cuskadeen ka faramaran yihiin xukuumadda Somaliland waxaana kaga soo noqon cashuurtoodii hore annagoo ah dhalinyar ka mid ah waxa weeyaan beesha magaale oo ah beeladiga guud ahaan waxa weeyaan dalka Soomaaliya iyo gobollo ka mid ah dalka Somalilandba haddana annagoo ku sugan gobolka Sanaag oo afka dhalinyarta ku hadlayna beesha magaale waxaanu doonaynaa inaanu halkan ku soo bandhigno dhowr qodob qodobada walaalayaal haddii aan iskor taago qodob koobaad waxa weeyaan dawladda Somaliland maanta waxay noqotay dawlad cid gaar ah oo adeegaysa oo cid gaar ah danahooda ku mashquulsan hase yeeshee aan u wada adeegayn beelaha iyo waxa weeyaan ummadda iyo bulshada isdhex taala ee dalka Somaliland maanta ku wada dhaqan taasina waxay muujinaysaa cadaalad darro iyo dulmi ka jira dalka gudihiisa ayay muujinaysaa beesha magaale horta wax saami ah iyo wax xuquuq ah ama rights ay ku leedahay waxa weeyaan dawladda dhisan ee Somaliland 30 sano soo jirtay ma jirto radii iyo dulmigii inay samayso laftigeedii adoo ka cabanayana taasi waa ceeb qeyrka inaad kula kacdo xumaantii aad adigu ka cabanaysay taasi waa ceeb weeyaan waxaan leenahay marka madaxda Somaliland ugu nasiixaynayna horta Soomaaliya waxba kaga cabanina ceeb iyo dulmi toona kaga cabanina maadaama idinku tii iyo tu ka xunba sameeynaysan taasi waa qodobka koobaad guud ahaan ku saabsan dawladda gaar ahaan gobolka hadii soo daadegno gobolka walaalayaal seen wada ogsoonahay beelo badan ayaa ku dhaqan oo ka kooban ilaa 13 beelood sida lagu sheego hase yeeshee magaalada Ceerigaabo ama waxa weeyaan gobolka Sanaag guud ahaanba maamulkiisu iyo gaar ahaan degmadiisu maamulkeeduba waxay wax ku hogaamiyaan ama waxa weeyaan ay wax ku saameelaan ama ay waxa weeyaan saamigeeda ay ku dhameystiraan waa 4 beelood wax la yiraahdo 4 beeloodna waa la wada garanayaa kulli kuwa halkan uga baahan inaan ka magacaabo maaha 4 beelood waxa weeyaan golaheeda deegaanka haday tahay iyo haday maamulkeeda tahayba waxa weeyaan waa 4 beelood baahiyaadkii iyo waxa weeyaan basic needskii human rights ku lahaa waxa weeyaan 4 beelood baa lagu saameelaya haddii aan tusaale ka soo qaato tusaalaha ay in badan wax ku cadaadaan madaxweynaha dawladda Somaliland waqtiyada kamid ah markuu xilka helay uu yimi gobolka Sanaag 2018 bayna ahayd uuna la kulmay marka beelihii dhammaan gobolka wada deganaa ballanqaadiyo ayuu sameeyay ballanqaadiyadii markuu madaxweyne tagay hoos baa la dhigay oo waxa weeyaan 4 beelood hadaan ka mid ahayn hoos baa la dhigay wixii kale tobankii waqti ay ahayd hay'adaha private agencies ka la yiraahdo ayaa waxay deegaanka magaalo geeyeen ama ay gaarsiiyeen caawumadii iyadoo ay ka socoto rag aan deegaankii ama beeshii ka mid ahayn baa yimi hawshii wax la yiri kuma jirtaan wayna disruption bay ku sameeyaan oo way waxa weeyaan arrinkii waxa weeyaan way qaseeyeen oo arqaladeeyeen qoryahooday soo qaateen gaarigiina way dhaceen hay'adda dawladdiina waan u tagnay aroornimadkii maamulkii iyo odayaashii beeshu way u tageen arrinkiina way ogeysiiyeen dawladdii waxay ka qabatayna ma jirto arrinka manay soo xidhin kuwii waxa weeyaan dhibaatada geystay hay'addiina meeshii dib uguma noqon ama amar dambe lagama fulin meeshii taasina waxay tusinaysaa deegaanka meesha dadka ku nooli ama qabaa'ilka waxa weeyaan gobolka Sanaag ugu tirada badan inay tiro ku taamayaan laakiinse waxaanu leenahay Allah idinka weyn idinku hadda tiro ku taamaysaan kamid ah 2019 Somaliland waxa soo gaadhay deeq waxbarasho oo markaa guud ahaan dalka la siiyay saamigii gobolka Sanaagna sidoo kale waxa weeyaan waa loo soo jaray deeqdii waxbarasho haddii ay tahay waa basic needs ama waxa weeyaan baahiyaadkii asaasiga ahaa ee bini'aadamku u baahnaa scholarshipkii ama deeqdii waxbarasho waxa lagu bees gareeyay 4 qabiil ee waxa weeyaan marka gobolka ka jiraana ee dulmi iyo tacaddi un bay ku dhaqmayaan doorashooyinkii gudidii doorashooyinka heer degmo iyo heer gobol intaba waxa lagu bees gareeyay waa 4 beelood shaqaalihii oo dhan
jaamacad baan wax laga soo xulan arday ICT baratay baan wax laga soo xulan runtii dee nidaam baa loo sameeyay shaqada in loo tartamo la xusho dadka taana afar beelood baa lagu siiyay beelihii kalena waxba lagama soo qaadan aad baan u cambaarayna waan ka xunahay runtii waxaan ku soo gabagabeynayaa hadaan nahay dhalinyarada beesha magaadle xuquuqdeedii inaan uga fadhino Somaliland ayna gartaan maadaama aanu nahay dad awoowayaala wadanka soo arrimin jiray boqortooyooyin soo lahaa aad iyo aad baan uga xunahay inaan xuquuqdeedii maanta weyno ujeedinayaa dee waxaanu nahay ganacsi baan ku leenahay gobolka annaguna haddii dee xuquuqdeedii asaasigeeda basic needska haydaanu weyno annaguna ganacsiga iyagu way wax cashuura kama bixinayno waayo haddii aanu cashuurtii aanu bixinayno waxba aanay naga soo noqonayn sabab aan cashuurta ku bixinaa meesha ma taalo Cabdirasaaq Sugulle codka Bariga Afrika Ceeri Gaabo.